عشان قبتناه Okay. sidaan u sheegnay shacabka Soomaaliyeed aan ugu talagalnay inay xilligan dalka samata bixiso waxaan marka hore rabaa inaan ku bilaabo soo xulay oo laguna xisaabtami doono qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay tahay sida soo socota qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa inuu Soomaali yahay aaminsan yahayna midnimada iyo madaxbannaanida ummadda Soomaaliyeed waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maareynta ku aadan shaqada uu dalbanayo waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan waa inuusan ka mid ahayn xiriirna la lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibradiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada waa inuu la jaan qaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dawlad wanaag isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda ma guurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka taasoo laga bilaabi doono ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid ah golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas
waxaa kaloo lagu soo dhaweyn doonaa haddii ilaa yiraahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas'uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kalifi doonto inay ku waayaan shaqadooda waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yiraahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga raba inay fuliyaan bil walbana lagula xisaabtami doono qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii ka soo bixi waaye sida aan markii hore sheegayna waxa ay caddayn doonaan hantida ay leeyihiin intaa ka sokow waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ugu bishaareeyo annagoo tix raacayna isbeddelkii ay codsadeen ummadda Soomaaliyeed anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah qodobkiisa 97 farqadiisa 3aad ee magacaabista xubnaha golaha wasiirada isla markaana waafajinaya qodobka 98aad shuruudaha xubinimada golaha wasiirada isla markaasna aan wada tashiyo ballaaran la sameeyay madaxweynaha xildhibaanada waddanka oo dhan dumarka Soomaaliyeed bulshada rayidka dhalinyarada culimada iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshada waxaan idin hor keenay ama ummadda Soomaaliyeed rabaa inaan hor keeno xukuumadda cusub maadaama haddaba uu dalku marayo xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan kana jiraan qaybo ka mid ah dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhamaanayaan isla markaasna aan horay u ballan qaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan sameynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas wasaaraddaas oo anugu magac darnay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ugu horeyntii waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan u soo duceeyay madaxdooda nana garab istaagay waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in dawladnimada ay ka bilaabatay maantay laakiin shaqadii ay dhiman tahay waxaan rabaa inaan u ballan qaado qof walba oo la magacaabay oo xukuumaddan ka mid noqda in lala xisaabtami doono loolana xisaabtami doono si hufan waxaa kaloo idin ballan qaadayaa inaad aniga iyo madaxweynahaba nala xisaabtami doontaan oo annaguna aan ogolnahay in lala xisaabtamo dalkani waxa uu marayaa meel u baahan in dadka Soomaaliyeed ay isu yimaadaan xukuumad marka la dhisaayo waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed oo hamigoodu ahaa inay dalkooda iyaguba wax ka dhisaan inay rajeynayeen in xukuumadda ka qayb qaataan annagoo haddaba fiirinayna xaaladda dalku uu ku jiro waxaan soo dhisnay xukuumad sida aan sheegay golaheeda wasiiradu ay ka kooban yihiin 26 iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen oo ah xukuumad loogu talagalay inay waajibkeeda shaqo gudan karto si kale haddaanu dhigno xukuumad technocratis ah dad shaqadooda u gudan kara si hufan sidaas darteed waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan culamaa diinta dhalinyarada dumarka siyaasiyiinta dalkan u soo halgamay oo dhan cid walba oo rabtay inay dalka wax u qabato oo aan xukuumadda soo gelin waxaan iyagana u sheegayaa in albaabkii wax lagu qaban lahaa uu u furan yahay
sidaas daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inay fursad siiyaan xukuumaddan aan soo dhisnay iskuna dayayna inay xukuumaddooda garab istaagaan waxaa kaloon ku dhiirigelinayaa ragga iyo dumarka Soomaaliyeed oo qayb ka noqday xukuumaddan inuu bilowday isbeddelkii ay codsadeen shacabka Soomaaliyeed inay naga daacad tahay inaan isbeddelkaas ka dhamayn inaan diyaar u nahay dalkan inaan gaarsiino meeshii ummadda Soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen jiilka hadda jooga halkan ma aanay ku guuleysan inay u diyaariyaan jiilka ka dambeeya wixii ay xaq ugu lahaayeen si haddaba aan waajibkeenna ummadnimo isaga ridno shaqadii aan dadka Soomaaliyeed oo da'da yar ugu gudbi lahayn waxa ay xaq noogu lahaayeen maanta ayay bilaabatay cid walba oo annaga naga mid oo fursad u heshayna waxaa laga rabaa fursadaas inaanay dayacin waxaan mar labaad ku celinayaa waan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed hortiisa ka ballan qaado idinkana aan idin sheego qaab dhaqameedkii loo shaqayn jiray inuu isbedelay waxaan rabaa inaad u diyaar garoodaan idinkuna baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad ay adigu mahadsantiin taageeradiina iyo inta hadda nagala joogto dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqaysa sida ugu dhaqsaha badan sidaas daraaddeed anigoo og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixino xukuumaddaas ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyeyn balse ay noo soo duceeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan haddana ku soo dhadaa oo inoo akhrin doona magacyada xukuumadda cusub ee la soo magacaabay ujeedo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 97 farqada koowaad labaad iyo saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya markuu arkay xeer madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lambarka 133 taariikhda 12 bisha 12 2013 oo ku saabsaneed magacaabista ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka uu garwaaqsaday baahida loo qabo in la dhiso golo xukuumad kadib markii xukuumaddii hore xilhaynteedii dhamaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa sharaf weyn u ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyay wada tashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra'iisul wasaare ku-xigeen wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno waa sida soo socda abukaate mahdi axmed guuleed khadir ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Dr. Iimaan Cabdullaahi Cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Cabdi Faarax Siciid Juxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xildhibaan Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka maaliyadda Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirka gaashaandhigga Ambassador Yusuf Garaad Umar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdullaahi Daahir Cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abukaate Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirka arrimaha dastuurka Ambassador Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan Maryan Awees Jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cabdullaahi Salaad wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka injineer Cabdi Canshuur Xasan wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan wasiirka xanaanada xoolaha Qadra Axmed Ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka
xildhibaan injineer cabdirashiid maxamed axmed wasiirka badroolka iyo macdanta xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga gudaha xildhibaan saciid xuseen ciid wasiirka beeraha doctor fawsiya abikar nuur wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi wasiirka galluumaysiga iyo kheyraadka badda xildhibaan khadiija maxamed diiriye wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga injineer cabdiraxmaan cumar cismaan wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha abuukaati xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda xildhibaan saalax axmed jaamac wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan brofesor saalim caliyow ibrow wasiirka korontada iyo biyaha doctor maryan qaasim axmed wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka haddana waxaan aqrin doonaa wasiiru dowlayaasha cabdulqaadir macalin nuur wasiiru dowlaha madaxtooyada cabdulaahi xaamud maxamed wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xildhibaan cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan cabdulqaadir sheekh cali bakhdaadi wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda xildhibaan maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan maxamuud xayr ibraahim wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xildhibaan cabdulaahi faarax wehliye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdulqaadir axmed khayre cabdi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan xasan macalin xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xildhibaan cabdiraxmaan kulmiye xirsi wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada tacliinta wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan cabdulla xaaji cali wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha axmed cabdi kaariye wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan cabdulaahi bila nuur wasiiru dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda cabdixakiim xasan ashkir wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa ku xiga wasiir ku-xigeenada xildhibaan cismaan aadan dhuubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xildhibaan xaaji cali sheekh maxamed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka cabdulaahi sheekh cali qaloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xildhibaan cabdulaahi colaad rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mukhtaar mahad daa-uud wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan faysal cumar guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan doctor xuseen cabdi cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka xildhibaan fahma axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan cismaan maxamed cabdi daalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda degadaha gaadiidka iyo badda xildhibaan xirsi aadan rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xildhibaan ibraahim yarow isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan xaamud cali xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xildhibaan maxamed khaliif diiriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan jamaal xasan ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan samra ibraahim cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maxamuud cabdulqaadir warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda badroolka iyo macdanta xildhibaan cabdinaasir siciid muuse wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha xildhibaan cabdikariim khaliif dalac wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha xildhibaan xuseen cusmaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow
wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xildhibaan axmed cumar islow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada isboortiga xildhibaan cabdiraxmaan iidaan yunis wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta doctor ciise weliye maalin wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda xildhibaan cabdicasiis carmaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha xildhibaan cilmi cumar ceen sane wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka sidaa darteed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu golaha shacabka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ka codsanayaa in ay ka aqbalaan soo jeedinta golaha xukuumadda xubnaha golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si loo helo xukuumad u adeegta qaranka soomaaliyeed wabillahi tawfiiq